بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته daawadayaasheeda qiimaha qaayaha qadarinta mudan ee aanu jecelnahayow meel walaad joogtaanba ku soo dhawaada war waxaan idinkaynay dalka gudihiisa iyo daafaha caalamkaba oo dabcan aad ka dheehanaysaa shaashada telefishinka caalamiga ee Somali Channel xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa warkana waxa idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Cabdilaahi Maxamed Andara qodobada aad maqli doontaan daawadayaal waxa kamida guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxay gaadheen magaalada Garowe ee maamulka Puntland komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa maanta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxay ku kala direen shaqaalaha ka qayb qaadan doona diiwaangelinta mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliland ayaa waxay maanta ansixiyeen oo daraska miisaaniyadda ee sanadka 2021 banaanbax lagaga soo horjeedo sicir bararka ka taagan deegaanada Puntland ayaa maanta ka dhacay magaalada Garowe baarlamaanka maamulka Hirshabeellana waxay su'aalo weydiiyeen laamaha ammaanka ee maamulkaasi gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa waxa uu hoygiisa ku booqday Abwaan Maxamed Warsame Hadraawi garabka haweenka ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxay maanta safar shaqo ugu baxeen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso waxay bogaadiyeen in telefishinka Somali Channel mar kale ku soo laabto deegaanada Soomaalida daawadayaal kuwaasi waxay hayeen qaar ka mid ah qodobadeena ugu doorka rool ee warka imikii haatan isu diyaariya qodobadaasi iyo qodobo kale faahfaahsan